soo dhawaada. Maalin baa laga yaabaa inaad ku riyootay inaad noqoto qof ka duwan dadka kale, ama aad jeclaysatay in lagu qadariyo oo lagu sharfo si aad u gaarto hadafkaaga ah inaad noqoto qof ka duwan dadka kale, ama xitaa waxaad danaysay in eegmo weyn ama qaab sharaf ku dheehan yahay adiga lagu eego. Dad waxaa jira sankooda u eg yahay qaab kale, kuwana timahooda ayaa waxay leeyihiin midabo la yaab leh, kuwana jirka ayay ku samaysteen taatu iyo sawiro fara badan, balse dadka waxaa ku jira mid aan u baahnayn inuu nooc kale iska dhigo. Midaasina waa xaaladda John Nagster. John waxa uu leeyahay waji cajiiba oo dadka kale ka duwan, umana malaynayo inuu jiro qof midaasi ku xasdaya. Ninkani haddadan la joogo, marka la eego noloshiisa waa nin fariid ah, sababtoo ah nolosha ayuu jecel yahay inuu is-horumariyana wuu doonayaa. Laga yaabay midaasi inaadan rumaysanin, laakiin ninkan horumar badan ayuu sameeyey. Halkay dadku markii hore ka nici jireenna, hadda isaga ayayba jeclaadeen. Waxba yaana kadiskaaga dhigine, ila dhegayso sheekado kaamila. Waa wiil yara oo ku dhashay qaab cajiib ah uu kaga duwan yahay ilmaha kale. Kadib markay qoyskiisa iska xoreenna, waxa wiil ka dhigtay qoys qani ah. Mushkiladdu maahan sida ay indhihiisu eg yihiin ama heerka uu gaarsiisan yahay midabka jirkiisa. Inkastoo wiilkan yari caafimaad qabay intii uu uurka ku jiray, balse markii uu dhashay waxa uu la dhashay cudur dhif iyo naadir ah. Xaaladani waa mid aad u dhif ah oo mar walba la arkin, iyadoona 50,000 qofna laga helo hal qof oo noocaasi ah. Bal maleyso tiradaas. Xaaladda wiilkan uu la dhashay ayaa lagu magacaabaa Treacher Collins syndrome. Cudurkan ayaa waxa uu sababayaa in lafo badan oo ka tirsanaa wajiga ay meesha ka maqnaadaan, sidaa darteedna qofka muuqaalkiisa ayaa noqonaya mid la yaab leh. Balse nasiib xumo, wiilkan markii ugu horreysay hooyadiis aragtaba waa iska nacday oo ka tagtay. Laga yaabay inay ka cabsatay wajigiisa qaabka uu eg yahay, ama xitaa ay istirima qaadi kartid mas'uuliyadda wiilkan, sababtoo ah waxyaabo badan ayuu u baahnaanayaa oo dadka cudurkan qaba ayaa cudurro badan oo kala qaba, waxayna u baahan yihiin in aad looga taxadaro aadna loo ilaaliyo. Balse nasiib wanaag, John waxaa helay islaan hodana, iyadoona gurigeeda geysatay oo wiil ka dhigatay, aadna u xanaanaynaysay. Markay islaantan John heshayna, waxa uu jiray dhowr usbuuc oo kaliya. Cudurkan wiilkan ku dhacay wuxuu dhibaato u keenay oo kaliya maqalkiisa, laakiinse sidiisa kale markii uu yaraa waxa uu ahaa qof dabiici ah, sida carruurta kalena u kori jiray. Dhaqaatiir badan oo xaaladiisa sii arkay ayaa waxa ay sheegeen wiilkan inuusan waxba maqli doonin, hadlina doonin, sidoo kalena uusan awood u yeelan doonin inuu socdo. Waxayna sheegeen inuu mushkilad iyo dhibaato weyn ku yahay qoyska markaa haysta, wax badanna ay ka sheegan doonaan xaaladihiisa kala duwan. Laakiin mar waliba dhaqaatiirtu waxyaabaha ay sheegaan run ma noqdaan, oo mararka qaar been ayay noqdaan. Oo mararka qaar waxaa dhaca waxyaabo la yaab leh oo ka soo horjeeda hadalladii ay hore u sheegeen dhaqaatiirtu. Islaantii heshay wiilkan kana dhigatay wiilkeeda oo kale ayaa dadaal aad u fara badan ku bixin jirtay, iyadoona wax waliba uu u baahdaba u keeni jirtay. Sidoo kalena waxa ay geysay isbitaallo badan, iyadoona qalliimo badan wiilkan lagu sameeyey, balse weli waxa uu u muuqdaa mid qariib ah oo la yaab leh, sababtoo ah wajigiisii wax badan iskama beddelin. John waxaa ku adkeed inuu asxaab samaysto, sababtoo ah ilmaha lafaca ah ama nuuciisa ah dhammaan waa ay ka carari jireen oo ma u soo dhowaan jirin. Mar waliba oo uu iskuulka aadayo, wuxuu hore u iibin jiray xalwiyaad iyo waxyaabo macmacaana si uu asxaabtiisa ugu geeyo, sidaasina uu ku farax geliyo ama xitaa ay saaxiib la noqdaan. Laakiin middaa kumuusan guulaysan. Cayaarihiisa kale ee kala duwan ayuu isaga cayaari jiray howlalka iskuulka. Xitaa marar badan waxa uu isku dayay inuu noqdo qof shactaroola ah ama qof majaajilaysta ah si uu asxaabtiisa kaga qosliyo. Laakiin asxaabtiisii oo ka carartay una soo dhowaan weysay waxay ku sababtay xitaa inuu guriga ka soo bixi waayo, sababtoo ah hadduu waddada soo maro dadka ayaa si xun u eegaya oo ku jeesjeesaya. Arrintaasi waxay ka dhigtay John inuu noqdo qof mar waliba murugaysan. Sidoo kalena islaantii wiilka ka dhigatay ayaa iyaduna noqotay mid murugaysan oo la yaaban xaaladiisa. Laakiin wax waliba waa isbedeleen kadib markii muddo kadib nin saaxiibkii ah uu u soo bandhigay inuu ka shaqeeyo baar khamri. John wax badan buu iska hilmaamay, wax badan ayuu dadka ismoogaysiiyey. Si kastoo ugu jeesjeesaana horay ayuu uga socday, noloshiisa ayuuna ka sii watay, shaqadiisa ayuuna ku sii guda jiray. Waxa uuna bilaabay inuu jirdhis sameeyo si uu caafimaadkiisu u ahaado mid hagaagsan. Cudurkuna wuxuu dhibaato ku keenay oo kaliya maqalkiisa, balse xubnihiisa jirka ee kale waa kuwa caafimaad qaba. Muddo kadib ninkan ayaa waxa uu noqday macallin dhanka jirdhiska ah, isagoona middaa kaliya aan ku guulaysan, balse noqday macallin aad u wanaagsan oo dhanka jirdhiska ah. Sidoo kale waxa uu helay labadiisii waaliday hore u tuureen. Markii uu la xiriirana waa ay diideen inay si wacan ula hadlaan. Dad badan baa laga yaabaa inay isweydiinayaan xaaladda ijtimaaciga ah ee ninkan lagu magacaabo John. Wiilkan ayaa muuqaalkiisu waxa uu yahay mid dadka kale ka duwan, midaasi oo ku sababaysa in ay ku adkaato in uu sameeyo wax shukaansi ah. balse muddo kadib ninkan aad ayuu isugu kalsoonaaday isagoona waxyaabo badan oo ku haminayay rumeeyay.
gabdhaha qaar ayaana u soo bandhigi jireen inuu raaco si ay u soo sheekaystaan, balse wixii la joogaba qofkii ay isjeclaayeen waa is heleen, waana gabadhan lagu magacaabo Laura. sheekada gabadhan iyo wiilkan ayaa waxay ka bilaabatay meeshii uu jirdhiska ku samayn jiray ama uu muddadii dambeba ka noqday macalinka. gabadhan oo meesha joogtay ayuu ka dareemay in wadnaheedu garaac badan samaynayo marka ay isaga kaag dhowdahay. midaasina waa mid ka mid a calaamadaha lagu garto in qofkan uu danaynayo qofka kale. markii uu gaaray da'da 30 sano, dhaqaatiir badan ayaa waxay u soo gudbiyeen oo u sheegeen in lagu sameyn karo camaliyooyin qalliin oo wejigiisa lagu qurxinayo, lafihiisa kala dhimanna lagu hagaajinayo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda casriga ah. balse midaasi waa uu iska diiday oo waxa uu sheegay inuusan u baahnayn, maadaama uu xaqiijiyey riyooyin badan iyo waxyaabo badan uu ku hamin jiray. weligaa iyo allaha dhibaato ku haysata naftaada ha u yasin. dhibaato weliba oo kugu dhacdana ka baro cashir si aad uga gudubto haddii ay hadhowdii dhibaatadaasi oo kale kugu soo laabato. weligaa ha eegin dadka geesahaaga ka qaylinaya ee doonaya inay hoos ama gadaal kuu dhigaan. kuwaasi naftooda ayay hormarin waayeen, sidaa darteed waxa ay doonayaan inay adigana kugu daraan gruubkooda. ku kalsoonow naftaada, waxaad leedahay awoodo badan oo qarsoon. awoodahaasi oo aad ku xaqiijin karto waxyaabo badan oo adag oo aysan dadku malaysan karin ama xitaa aysan rumaysan karin. John ayaa wuxuu ayaamihii dambe ku dadaalayay inuu xanaaneeyo kana warqabo carruurta nuuciisa ah ama qabta cudurka uu isaguba qabo. tusaale ahaan, qoys degan waddanka Australia ayuu booqday oo uu ku jiro cunug yar oo qaba cudurka uu isagu qabo. waxa uuna go'aan ku qaatay inuu u safro oo halkaasi tago si uu u soo ogaado xaaladda uu ku sugan yahay wiilka yar. wiilkan yar ee u dhashay waddanka Australia ayaa waxa uu qabaa xaaladda haysata ninkan lagu magacaabo John ee aan qisadiisa ka sheekaynayno. John ayaa cunuga yar sawir la soo galay kadibna soo geliyey baraha bulshada gaar ahaan Facebook si uu ula wadaago asxaabtiisa. qoyska wiilkan yar ka dhashay ayaa waxay sheegeen inay kalsooni badan heleen kadib markii uu soo booqday ninkan lagu magacaabo John ee ka sheeganaya cudurka cunugooda yar ku dhacay. safarro badan ayuu sameeyey. safarkani maaha kan kaliya ee John uu ku aaday waddanka Australia si uu u soo booqdo qoyskaasi haysta wiilka yar ee cudurkan ka sheeganaya, balse waxa uu galay safarro badan oo kala duwan si uu u kaalmeeyo carruurta yar ee ka sheeganaysa cudurka naadirka ah. sidoo kale ninkan lagu magacaabo John ayaa waxa uu sheegay inuu mar uun ku haminayay in uu arki doono ama uu heli doono qof qaba cudurka uu qabo oo kale, si uu u dhiirigeliyo uguna sheego in noloshu aanay ahayn weji qurxoon oo keliya, balse loo baahan yahay kalsooni iyo nafta oo laga adkaado, horumarna lagu hamiyo. John ayaa carruurta yaryar ee noocaana waxa uu kula taliyaa in ay naftooda ku kalsoonaadaan oo aysan dhegaysan dadka yasaya ama waxa xun ka sheegaya. wuxuu u sheegaa oo ku yidhaahdaa, waxaad noqon kartaan dad horumar leh, shaqo waad heli kartaan, waxbarashana waad heli kartaan, sidoo kale xitaa qof idin jecel waad heli kartaan, kadibna waad aasaasi kartaan oo samayn kartaan qoys. marnaba naftiinna hayasina, marnaba hoosa isku dhigina, hana isdhihina wejigiinna ayaa foolxun, cid idin doonaysana ma jirto. sheekadu sidaa maaha ee naftiinna hormariya oo ku dadaala mar weliba in aad horumarka aad ku haminaysaan gaartaan. haddii aysan wax badan ku saamayn qisada ninkan, bal aan kuu sheega qisada nin kale oo isaga la mid ah. waa ninkan lagu magacaabo Simon ee isaguna haysatay dhibaatada ninkan haysatay oo kale. wax badan ayay dadku ku jeesjeeseen, faraha ayay ku taagtaageen oo way isku sheegeen oo dhaheen, ma u jeedaa qaabka uu eg yahay? run ahaantii waad dhibsanaysaa dadka oo idil markay adiga ku soo eegaan kuguna jeesjeesaan, dhinacna ay kuu faquuqaan oo markaasi aadan ahayn qof ku dhex jira bulshada oo ka mid ah. ninkan wax badan buu adkaystay, wax badan buu dadaalay, wax badan buu dadka iska moogaysiiyey, kadibna waa uu gaaray heerkii uu doonayey. Simon ayaa waxay isbarteen gabar aad uga taxadari jirtay eygiisa, aadna u xanaanayn jirtay. isbarasho kadibna waxa ay aasaaseen qoys. gabadhan xaaskiisa ah ee lagu magacaabo Vicky ayaa waxay ninkan u dhashay gabar, laakiin nasiib xumo gabadhii yareed waxa ay dhaxashay cudurkii ku dhacay aabaheed. balse nasiib wanaag, gabadhan cudurka ku dhacay waa mid aad u yar, indhaheeda oo keliya ayuu saameeyey, halka wejigeedu yahay mid hagaagsan oo aan lafi ka maqnayn. aabaheed ayaa cudurkan waxa uu ku sababay ama uu ku keenay inuu noqdo qof dhagoola oon waxba maqli karin, sidaa darteed waxaa ku waajiba inuu barto luuqadda ishaarada ama ay ku hadlaan dadka dhagoolaha ah. Simon ayaa waxa uu sheegay in waxa ugu quruxda badan ee noloshiisa ay tahay in marka uu gabadhiisa ku dhahayo aad ayaad u qurux badan tahay, ay tahay midaasi midaad u farax gelinaysa. sidoo kale Simon ayaa waxa uu sheegay inuu marnaba horaan u malaysanaynin in gabadhiisu ay ka dhaxli doonto cudurkan. sidoo kalena waxa uu sheegay in gabadhiisu ay heli doonto dad jecel, dad soo dhoweeya, dad ixtiraamo oo sharfa, dad qadariya, dad mar weliba garab taagan oo ah
dad ixtiraam iyo qadarin badan. sidaas darteed waxa uu sheegay noloshu inaysan ahayn oo kaliya in waji qurux badan la samaysto, balse loo baahan yahay in wax badan la qabsado si kasta oo qaabka wajigu u ekaado. xaaska uu qaba Simonna wax badan ayay soo sabartay, sababtoo ah dad badan ayaa waxay u haysteen in ay tahay kalkaaliso ogaata xaaladda caafimaad ee Simon, iyagoona la yaabanaa qaabka ay xaas ugu noqotay Simon, maadaama isaga marka loo eego ay tahay qof ka quruxsan, jirkeeduna yahay mid kaamil ah. balse gabadhan arrimahaasi oo idil horay ayay uga socotay oo dhegna jalaq uma siin. noloshooda ayaa hadda waxay tahay mid aad u wanaagsan, iyagoona aad isugu faraxsan. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu kalsooni badan ku siiyey. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka, subscribe dheh oo rukumo gambaleelkana furo si ay kuu soo garaan dhammaan muuqaalada halkan aan soo gelino. fii amaanillah.